كليستا سود وهذا صاحب يا سود وهذا waxaan galeynaa runtii live mugdi aan ku socdaa hadda xaaladda xamar ay kaga sheekeen doona caawa sidoo joogu yahay xamar oo dhan aan soo dhaxmaray meelo badan oo degmooyin kamid ah gobolka Banaadir soo maray caawa waa habeenkii farmaajo ugu dambeysay dad badan aaminsan inuu wali madaxweyne yahay farmaajo iyo inuu san ahayn marka mugdigan hadda aan ku jiro iyo qaybo kamid ah degmooyin gobolka Banaadir oo rasaas ay ka dhacayso ayaa in la wadaagaya marka ma garan karo sida xaaladdu noqon karto laakiin jawi degan iyo jawi aan degnayn magaalada Muqdisho way isugu jirtaa marka saaxiib yar soo dhawaada adinku aad u mahadsan dhamaantiin mugdiga aan ka soo hadlaayana waxaan codsanayaa in dadku aysan waxba marka runtii aysan xolaada u qaadin Muqdisho meelo kamid ah oo runtii hadda aan soo arkay qaarkood waxaa dhoobnaa dad badan oo sugayay 6 saacadood oo runtii inay sugaanna waxa ku saleysneed qaarkood inay dabaal degaan oo ay soo dhaweeyaan in caawa farmaajo ugu dambayso halka qaar kale ay sugayeen in caawa kale ay arkaan oo farmaajo arkaan waqtigiisa dhamaaday marka dhamaantii soo dhawaada sina sharkiray adinku maasan wax yar oo kooban ka shaqeyn doona wixii aan ku arkay Muqdisho hadda waxaan taaganahay aniga wadada dabka ee Muqdisho aan taaganahay meelo badan oo runtii xilligan oo kale baadiye ahaan jirtay ayaa jaama oo arkaya gaadiid badan iyo mootooyin badan oo socdaan u jeeda runtii waxaana ahaa jiray xilligan oo kale magaalada markaa timaado wixii ahaa jirtay meel la kala seexday dadku ay kala seexdaan oo ay kala tageen laakiin caawa dad badan ayaa sugayay 6 saacadoodnimo oo banaanka taagnaa oo runtii isku diyaarinayay inay ogaadaan 6 saac kadib caawa magaalada maxaa ka dhici doona halkan hadda taaganahay waa dabka Muqdisho waa runtii xilli 6 saacadoodnimo daqiiqadaha raacsan hadda dadkuna way soo jeedaan waxa hadda ay runtii meel aan iga fogeen laga riday rasaas dadku ay daawanayeen oo Facebook live ka xataa qaarkiin aad ku aragteen dad badan isweydiin rasaastu waxay ahayd ma madaxweynaha lagu soo dhaweynay ma madaxweynaha inuu tagaa lagu farxayay laakiin way idin sheegayaan aniga shakhsiyan runtii caawa waxa kamid ahay dadka ku faraxsan in farmaajo habeenkii ugu dambeeyay xal uu ahaa saacadii ugu dambeysana wax yar kore soo dhamaatay oo aan kala jeedo dalkan iyo dadkan biri wixii laga ka bilowdo runtii Soomaaliya ka dhaxaya aniga hadda in la hadlayna waxaan noqon karaa musharax madaxweyne oo madaxweynaha dalka Soomaaliyeed ayaa u sharaxana runtii ciidamo badan ay muuqda qaarkood oo dhalinyaro u badan marka ma garan karo jawigooda iyo xaaladooda laakiin dalku hadda uu degan yahay jawi colaadeed ma ahan oo jawi iska degan laakiin dadka ugu badan ee sugaya caawa akhyaare waxay ahaayeen dad mucaarad iyo muxaafid isugu jira aniga waxaan kamid ah dadka mucaaradka ah oo caawa ku faraxsan in farmaajo ugu dambeysaan kamid ahay sababta aan saas u leeyahay wax kale maaha
xasan sheekh dalkan wuxuu gaarsiiyey in dee doorasho la aado xilligan oo kale doorasho la galay laakiin caawa farmaajo doorasho laga baryayaa waa aragteen dhibaatada ugu badan ee runtii la gaarsiiyey dalkan warqaatiya ka tihiin khudbadii ugu dambeysay ee saaxiibkii farmaajo u jeediyay was caawa saaxiibaanahay waa simanahay madaxweynaha Soomaaliya weeye xil ma hayo caawa marka saaxiibkii farmaajo dhibaatada ugu badan uu geystay waxa kamid ah in dadka hortooda uu ka yiri daniya wax ka soo yeelay daniya inta ka dhacay daniya dee ku guuleystay inuu shirki qaato dani walaalow dani waa dhamaatay hawshiisa caawa runtii xamar weeye waxa biri dhici doona kama hor dhici kara aniga shakhsiyan laakiin waxaan magaalada caawa ku arkay wax ila fiican ma aysan ahayn shirar kala duwan socday gudoomiyihii baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale oo mucaaradka caawa way wada fadhiyaan isgooska dabka ee Muqdishona caawa sidaas waa aragtaan halkaas aan taagana hadda isgooskaas waa Muqdisho waa dabka waxa isleedahay 3 saac habeenimo la joogaa isleedahay xilliga marka ay timacna 3 saac habeenimo in la joogo ayaad u malaysaa aniga waxaan xasuusay markii magaaladu saan oo kale u camiran tahay waa marka iidaha oo kale xilliga habeenka ah ciida oo kale saan ay u camiran tahay magaalada laakiin caawa oo farmaajo la sugootinayo magaaladu way camiran tahay dadkuna runtii way soo jeedaan de magaaladu waa shidan tahay baabuurta iyo basaska baxal raayisha mootoleeda iyo waa la kala kicinaya magaaladu waa iska niiko wax kala ma ahan aniga waxaan qabaa dadka soo jeeda caawa waa dad u dabaaldegaya bixistii iyo tuuryadii farmaajo u dabaaldegayaan saasaan qabaa anigu si kala ma qabo dadka ka naxsan farmaajo inuu dhacay farmaajo fursad u heystaa wuu soo sharaxi karaa mar kale musharax waaye hadduu guuleystana mar kale madaxweyne noqon karaa dabka wadada dabka caawa waxa ugu yaab badan waxa waaye mootooyinkii waxaad moodaa caawa in la soo wada bixiyo dhammaantoodu orodka iyo fikir tacda ka socotay iyo niiko aad u niikinayaan waxaan fahmi waayay markii madaxweynaha may taageersan yihiin markii niikinayaan bas madaxweynaha ka soo jeeda anigu waa fahmi lahaay dhinacan wadada markaa ka eegto waa isku mid magaaladu waa jaam xilligaan jaamta waa aragtaan saaxiibayaal dhinac kasta magaalada markaa ka fiiriso magaaladu xilligaan oo kale markaa marto cillay ahaan jirtay jaam kama jirin meel iska mugdi oo lagu kala tagay xilli siqdhaxo la kala seexday noocaas ahaan jirtay magaalada laakiin hadda ma garan karo sababta caawa magaaladu waa shidan tahay waa la camiray qof kasta siyaasadda u haqaltaaga dee waxa la leeyahay wareer caawa maxaa soo kordhi kara maxaa caawa soo bixi kara halkay wax marayaan farmaajo ma la tuurayaa farmaajo ma sii joogayaa dadka dhan dhagtii taagayaan hooyadii soo jeeda ilmihii yararka soo jeeda waa kaas ciyaalka xafsun cariisan soo jeeda wala xasan adduunyaa soo jeeda waa kaasa xataa dhaqaatiirtii shay banaanka ku cabaayaan cid seexata caawa oo magaalada ka seexatay haba yaraatay ma jirto waa la soo wada jeedaa adiguna waa soo jeedaa ay fiirsanaya waa aragtaa hadda waxa weeye dadkii iyo waxa soo jeeda adigu naftigaaga waa